barnaamijka riyadii rumowday ee dekada Garacad waxaanu maanta ku soo qaadanaynaa gallaadi baxda dhudub tuurdibi ilaa iyo kaalgacyo. barqanimo waxaanu ka anbabaxnay degmada Gallaadi ee gobolka Doolo ee dawladda deegaanka Soomaalida annagoo ku jeexnay jidka baxda dhudub tuurdibi ilaa iyo kaalgacyo oo ah jidka kaliya ee toos isugu xidhaya dawladda deegaanka Soomaalida iyo dekada Garacad ee Puntland. Cabdisamed waa mid ka mid ah dirawalinta sida joogtada ah ugu kala goosha gobolka Doolo ee deegaanka Soomaalida ilaa iyo kaalgacyo Puntland. haddaba xilli safarkiisu uu ku sii jeeday dhanka kaalgacyo ayaa waxaanu ka sii raacnay magaalada Gallaadi waxaanan ka sii sheekaysanay riyadii rumowday ee dekada Garacad faa'iidada uu yeelan doonto bulshada. intaas kuma koobnay waxaan wax ka weydiinay jidka dhismihiisu socda ee Garacad iyo dawladda deegaanka Soomaalida faa'iidada ay u soo kordhinayso noloshooda iyo dhaqaale ahaan hadday yihiin dirawalinta sida joogtada u isticmaala jidkan. aad baad u mahadsantihiin rajadii rumowday ee degmada magaalada Garacad ilaa iyo dawladda deegaanka haddaan nahay wadayaasha darawaliinta aad baan u soo dhaweynaynaa waayo wadanka waxaa ka jirta wado xumo baahsan markaynu maqalay barnaamijkaasna aad baan u soo dhaweynay. madaxweyne Mustafa waxa uu sheegay in si degdeg ah loo dhameystiri doono jidka isku xidha Garacad ilaa iyo gobolka Doolo. arrintaas markii aad aragtay iyo dekada Garacad oo xadhiga laga jaray rajaynta lag baa kugu dhalatay adiga? wallahi rajo weyn baan ugu dhalatay madaxweynahana waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay wadayaasha darawaliinta in la soo dedejiyo barnaamijkaas oo qaybta ay ku leedahay dawladda deegaanku ay aad uga qaadato maadaama waxa weeye wadanku ay ka jirto wado xumo baahsan xilli roobaadka oo hadda kale aan maraynana baabuurta inta badan meel la iska dhigo aan lagu safri karin wadanku dhiiri ka dhaco arrintaas marka waxaan leenahay aad baan u soo dhaweynaynaa marka in la soo dedejiyaan rabnaa insha Allah. jidka uu madaxweyne Mustafa sheegay marka la dhameystiro la meeyda rajadaadu ma waxay tahay in gaadiidkan aad si wadatid hadda saaranahay mise inaad mid ka weyn gadatid oo si aad baayac mushtarki ganacsatada alaabta ugu kala gurtid? maya waxaan rajaynaynaa gaadiid ka weyn midkan inaan wada gadano insha Allah waayo baabuurtu waxay ku anfacaysaa macnaha gaadiidka waaweyn bay ku anfacaysaa laamiga oo wax ku soo qaadi kara haatan laakiin kuwan yaryarka maadaama aysan wado fiican jirin ayagu inta badan dhiirigu ma qabtaan laakiin baabuurta waaweyn laguma kaxayn karo wadooyinkan dhiiriga way goosanayaan. santarka dhudub waxaa bartanka magaalada toos u dhaxmaraya jidka dhismihiisu socdo ee Garacad iyo gobolka Doolo ee dawladda deegaanka Soomaalida. Faysal Guray Jibriil waa gudoomiyaha santarka dhudub ee degmada Gallaadi waa kan isagoo faahfaahin kooban inaga siinaya sida ay u bogaadinayaan reer dhudub iyo tuulooyinka dhudub hoos yimaada ee jidku dhaxmari doono. faa'iido u tahay dadka bulshada magaalada way dhisanayaan wadadana rajo iyo tiital waxay keentay hidadiile keentay hadda ilaa 2 hotel baa qabya ah fikradaasna waxa keenay markii la wada meesha maraysa dhismihii magaalada boobol u yeeshay hotel ma ilahan jira hoteelaha hadda laga bilaabay si mustaqbalka dadka wadada maraya ay u helaan goobo ay seexdaan waa qabyo hadda 2 hotel waa gabagabo wadadana inay ka faa'iideystaan bulshada u taaganta u dhiiran tahay insha Allah waan ka faa'iideysanayaan dhudub hadda kastan waxa laga dhigay tuurdibi la yiraahdo oo hadda 32 kilomitir u jira qiyaasta waana isla meel oo waa meelaha kulli goobaha ka faa'iideysanaya ganacsi ahaan iyo magaalo ahaanba weeye tuurdibi iyo dhudub aad baa dadku ugu heelan yahay waxaan moodaa waxaan la sugi karno kale qofku maalintii shacabku toddobaad sida jirba ku weydiinaya xagee wax marayaan wardaarta kama warqabno dawladina anaga xogta ma hayno ganacsatadina weli ma arag baan dhahnaa qof kasta wuxuu isku diyaarinayaa qaabka uga faa'iideysan lahaa kii hotel waxaynaya kii ganacsi abuuraya kii guryo asagu sii dhisanaya dadka oo dhan arrintaas ilaa tuurdiyo dhudub aad baa looga faa'iideysan. dadka wuxuu ka saaciday safarkii ku dheeraa isa socodka jidadkuna waa 900 korna waan soconnaa. safarka iyagii riyadii rumowday ee dekada Garacad waxaanu soo galnay dhanka Puntland. aad bay faa'iido ugu leedahay in deegaanka hadda maxjar baa ka dhisan kastankii waxay leedahay Puntland baa ka dhisan kastankii cashuurahana ay yaallo Puntland dhaqaalaha ugu badan oo ka soo gala halkan
hadduu laamigu soo marana faa'iido weyn bay u leedahay Puntland iyo Soomaaliya ilaa Ethiopia faa'iido badan bay u leedahay jidka Tuurdibi ilaa Kaalgacyo oo xarunta gobolka Mudug ayaa si habsami leh u socda meel wanaagsan maraya waana jidka loo qorsheeyay inuu isku xidhi doono Jigjiga xarunta dowladda Soomaalida ilaa dekada Garacad ee Puntland dadka wuxuu ka saaciday safarkii ku dheeraa isa socodka jidadkuna waa 900 korna waan soconnaa barnaamijka riyadii rumowday waxa idin soo tabinaya anigoo Jamarti Yaxye